Asalaamu calaykum asxaabteeda soo dhawaada waa walaashay Raxmad Diamond maanta hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ka hadli doonaa bisha sideedaad ee uurka marxaladda hooyada iyo midda uurjiifka calaamadaha ay hooyada isku arkaysa bisha sideedaad waxyaabaha ay u nugushahay maxaa looga baahan yahay sidoo kale cuntooyinka loo baahan yahay inay isticmaasho waxaas oo idil ayaan ka hadli doonaa bisha sideedaad hooyada waxa ay ku jirtaa saddexdeeda bilood ee ugu dambeysay ee loo yaqaano third trimester hooyadu waa ay kasoo gudubta waxyaabihii badnaa ee adkaa waxa u haray wax aad u yar iyo marxalad aad u yar ayaa u dhiman soo calaamadaha ay isku arki doonto marka lagu jiro bisha sideedaad maxaa ka mid ah calaamada koowaad waxa ay tahay neefta oo ku dhegta ama hooyadu waxay dareemaysaa inay neefta ay ku yar tahay waxaana u sababa minka ama caloosha oo marba marka ka dambeysa sii weynaanaysa ayaa keeni karta in hooyada ay dareento neefsashada oo ku dhegan ama ku yar calaamada labaad oo hooyooyinku isku arkaan waxay tahay barar lugaha ah maadaama hooyada cadaadis saaran yahay ama culays zaa'id ah ay wado barar lugaha ayay dareemaysaa tanna waxaa u sababa qulqulka dhiigga ee gaaraya lugaha ayaa yaraanayo calaamada kale waxa ay tahay hooyada inay isku aragto hurdo xumo hooyada inay isku aragto hurdada oo aad ugu yar habeenkii oo kale inaysan wax badan aysan hurdin waxay kaloo isku arkaysaa daal hooyada intay uurka leedahay oo idil waa ay dareentaa daalka gaar ahaan bisha sideedaad markii lagu jiro calaamadaha ay dareemayso ayay ka mid tahay daal fara badan inay hooyada dareento waxay kaloo dareemaysaa hooyada dhabarka qaybta dambe inay xanuunayso xanuunkaas dhabarkana mar walba oo ilmaha ay soo weynaadaan hooyada way dareemaysaa gaar ahaan bilahan ugu dambeeya ee uurka waxay kaloo hooyada dareemaysaa caloosha qaybta hoose inay xanuunayso ama maroojis in ay ka dareento hooyooyinka qaar ayaa isku arka kabaabyo lugaha iyo gacmaha ah waxaana u sabab ah dhiiggii ama qulqulkii dhiigga ee gaaraya lugaha iyo gacmaha oo yaraada calaamadihii ay hore iskugu arki jirtay bilowga uurka ilaa ay hadda ay ahaa inuu bag zaa'id u huro ama saxarada ama caloosha oo adkaata waa ay ka yaraanayaan balse hooyooyinka qaar ayaa weli isku sii arka ilaa iyo dhammaadka bisha sagaalaad haddii aan u imaano dhinaca uurjiifka xilligan marka lagu jiro dhammaan xubnihiisu waa ay samaysmeen xilligan wixii ka dambeeyana wuxuu isku diyaarinayaa dhalashadiisii ama sidii uu bannaan ku imaan lahaa maadaama waxa uu harayba ay yihiin hal bil oo kale ah qaabka ilmaha xilligan uu u jiifo ama uu isku diyaarinayo waa inuu madaxiisa uu hoos soo aadiyo uu isku diyaariyo qaabkii uu soo bixi lahaa hooyooyinka qaar ayaa qaabkii saxda ahaa ilmaha uusan isku soo rogin oo waxaad arkaysaa inuu marmarka qaar simaha uu keeno marmarka qaar lug uu keensado mar uu keeno gacan balse maadaama bisha sideedaad lagu jiro weli waqti ayaa u dhiman uu isku soo gidin karo uurjiifka haddii ay isku aragto hooyada qodobadan aan hadda sheegi doono waa inay si degdega ay u booqato dhakhtar xilliga lagu jiro bisha sideedaad haddii ay isku aragto qodobadan qodobka koowaad waxa uu yahay haddii dhiigbax zaa'id ay isku aragto waxaa laga yaabaa inuu barobareem ka jiro ibida meesha ay ku samaysan tahay taasna ay keenayso dhiigbax zaa'id ah soo hooyada haddii ay isku aragto waa inay dhakhtar si degdeg ay ku booqato qodobka labaad wuxuu yahay haddii dhabar xanuunka uu yahay mid zaa'id ah ama majiiriska ay ka dareemayso caloosha qaybta hoose ay tahay mid ziyaada ah soo xanuunka zaa'idka ay dareemayso haddii uu zaa'id u yahay waa inay isna ay dhakhtar booqato sidoo kale ama qodobka kale ee loo baahan yahay haddii ay isku aragto hooyada inay dhakhtar booqato waxay tahay haddii ay isku aragto bararkan waxaa laga yaabaa inuu barobareem jiro oo hooyada dhiigkarka uurka uu haayo soo waa inay dhakhtar booqato si bareesharkeeda loo cabiro haddii normal uu yahay iyo haddii kale marmarka qaar bararka waxaa keena culayska uurjiifka laakiin waa inuu dhakhtarka xaqiijiyo bareesharkeeda inta uu yahay calaamada kale haddii hooyada isku aragto loo baahan yahay inay dhakhtar booqato waxay tahay haddii wareer ay dareemayso hooyada markay istaagto haddii dawaqaad zaa'id ay dareemayso hooyooyinka qaar ayaa intay uurka leeyihiin oo idil dareema laakiin haddii mid soo laalaabta mar walba uu yahay ama ziyaada ah waa inaa dhakhtar booqato si hbigaaga loo cabiro bareesharkaagana loo cabiro loona ogaado xaaladaada indhaha oo ku madoobaanaya haddii aad aragto waa inaad booqato dhakhtarka madax xanuun haddii aad isku aragtay zaa'id ah sidoo kale waa inaad booqato dhakhtar sidoo kale haddii aad isku aragto
dhaqaaqa uurjiifka oo yaraada ama dhalaankaaga dhaqaaqiisa aad weyso gebi ahaanba waa inaad booqato dhakhtar. Hooyooyinka qaar ayaa bilaha dambe arka in uurjiifka uu si fiican u dhaqaaqaynin, laakiin gebi ahaanba haddii aad weyso wax dhaqaaq ah waa inaad booqato dhakhtar si kombiyuutar lagu saaro loona ogaado uurjiifka xaaladiisa iyo marxaladda uu markaas ku sugan yahay. Cuntooyinka loo baahan yahay hooyada inay isticmaasho marka lagu jiro bisha 8aad maxaa ka mid ah? Waxaa loo baahan yahay hooyada inay qaadato cuntooyin nafaqo leh, waayo waxaa socda koriinshaha uurjiifka xilliga marka lagu jiro. Miisaankiisa ayaa koraayo, xubnihiisi mar hore ayay samaysmeen, laakiin waxaa socda koriinshaha miisaankiisa. Waa inay qaadato cuntooyin nafaqo leh. Cuntooyinka loo baahan yahay hooyada inay qaadato waxaa ka mid ah caanaha, hilibka, ukunta, qudaarta cagaaran sida ansalaatada, brokoliga, spinachka, waxaasoo idil. Sidoo kale waa inay qaadato furuudka noocyadiisa kala duwan sida qaraha, cambaha, mooska. Dhammaan hooyada waa inay isticmaasho waxyaabahaas. Muhiimaddu waxa ay tahay hooyada inay qaadato cuntooyin ay energy iyo nafaqo ka helayso oo isku dheelitiran, ironteeda kor u qaadaya, sidoo kalena uurjiifkeedana korinaya miisaan ahaan. Miisaanka uurjiifka meeqa ayaa laga rabaa marka lagu jiro bisha 8aad ee uurka? Celcelis ahaan waxaa loo baahan yahay uurjiifka miisaankiisa in uu noqdo 2 kiilo iyo bar ilaa 2 kiilo. 2 kiilo ilaa 2 kiilo iyo bar waa in uu noqdo. Waxaa u dhiman 1 bil oo kale oo laga yaabo in inta u dhiman uu sii buuxiyo. Ugu yaraan waa inuu noqdo 2 kiilo ilaa 2 kiilo iyo bar. Si miisaankiisa uu normal u noqdana waxaa caawin kara cuntooyinka ay hooyada cunayso iyo waxyaabaha nafaqada ay quudanayso. Waxaa loo baahan yahay inay qaadato cuntooyin nafaqo leh si uurjiifkeeda uu ugu dhasho miisaan normal ah. Ugu dambeyn maxaa looga baahan yahay hooyada in ay sameyso marka lagu jiro bisha 8aad ee uurka? Qodobka koowaad waxa ay tahay maadaama aan soo sheegno hooyada inay isku arkayso neefta oo ku yar in qaabka ay u seexanayso ama qaabka ay u fadhiisanayso ay mar walba ay ka fekerto, waayo caloosha oo kor u soo baxda oo aad u weyn ayaa saameynaysa inay neefta ku dhegto. Mar walba waa inay hooyada ay isfidiso si neef fiican ay u qaadato ama jiifkeeda uu noqdo mid ay hawo fiican ama neef fiican ay qaadan karto. Haddii ay isticmaali karto birkimaha loogu talagala hooyada marka ay uurka leedahay inay support gareeyaan oo ay caawiyaan waa ay kasii fiican tahay. Qodobka labaad waxay tahay hooyada inay biyo badan ay cabto, biyo caadi aad u badan, energy ayay ka helaysaa. Sidoo kale waxyaabo badan ayay ka caawinayaan oo maqaarkeeda ayay qurxinayaan. Maadaama bisha 8aad lagu jiro oo hooyada bisha 9aad ay u dhowdahay dhalmadeedina ay soo dhowdahay, waxaa muhiim ah hooyada inay qaadato waxyaabo caloosheeda socodsiinayo sida furuud ay shiidatay, qudaar cagaaran, cuntooyinka dalka ka baxa, digirta, galleyda, waxyaabahaas inay isticmaasho si caloosheeda ay u socoto. Haddii ay isku aragto wax problema oo kusoo kordhay sida qodobada aan horey usoo sheegay oo idil, waa inay si degdeg ah dhakhtar ula xiriirto sida indhaha oo madoobaanaya, barar zaa'id ah, wareer zaa'id ah, xanuun aad u badan, waxyaabahaas oo idil hadday isku aragto sidoo kale waa inay dhakhtarkeeda ay booqato si xaaladeeda loo qiimeeyo. Sidoo kalena ay la socoto mar walba HB-geeda iyo bareesharkeeda inta uu yahay. Ugu dambeyn waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Ilaahay waxaan ka baryayaa qof kasta oo awlaad raadisa inuu awlaad ku indho-joogsado oo baari oo ku irsaaqo. Hooyooyinka xaamilada inuu Ilaahay u fududeeyo, kuwa awlaad haystan oo Ilaahay awlaad wanaagsan oo baari oo uga dhigo.